يا من أرسيت مراسينا وبعثت بنورك ياسينا أيلوذ بغيرك عاصينا لك يا الله. قد حل وباء أرقنا ورفعنا الأمر لخالقنا فهنا وهناك يلاحقنا فدعونا الله. يتلاشى الهم وينحصر ومخالب تقوى وتنكسر والفرج سيأتي waxaan u gudbi doonaa sheekheena sheekh xamse maxamed cali oon isna mowduuca uu barnaamijka kaga qayb qaadan doono uu noqon doono waxyaabaha keena inuu qofku guurka ka dib dhaco waxyaabaha uu kaga baaqsan karo dib dhacaasi sheekh ayaan uga bixi doonaa kusoo dhawoosha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما سيهي ولكن الشيخ محمود حكاه رمي دور شذا قف اللماني ودورنا يوقف كذا ونرش اللي وداقيه iyo de qiimaha ay leedahay waxa uu ku dooranayo oo ugu qiimo badan tahay in qofka diin ugu doorto. zawaajku ama guurku waa shay amaanan fi islaam oo waa sunnihii iyo dhaqankii rasuulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo diray. guurku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ka dhigay in nolosheenu ay baaqsi ahaato oo koonkan ama adduunyadan aynu sii joogno oo taranteena iyo tafiirteenu ay ku sii jirto. guurku wuxuu ka mid yahay caafimaad ahaan waxyaabaha qofku jir ahaan iyo qalbi ahaanba uu ku dego ee ka qayb qaata caafimaadka qofku inuu sareeyo. guurku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bulshooyinku ay ku hormaraan haddii guurku farabato haddii guurku yaraadana dib u dhac sababa dhinaca dhaqaalaha ama wax soo saarka guurka ama tarantu qayb weyn bay ka tahay. bulshooyinka maanta guurka badan ama taranta badani waxa la isku raacsan yahay inay ka dakhli badan tahay ama ay ka horumarsan tahay xagga dhaqaalaha ama adduunka bulshada taranta yar leh. xagga aqoonta ama farsamada gacanta ama si guud ogaalka adduunyadana tarantu qayb weyn bay ka tahay oo dadku markasta farabataan waxa farabadanaya faa'iidadeeda xagga aqoonta ama wax soo saar. waxa daba shakilaana guurka sida uu qiimaha leh ku amaanan shariicada dhexdeeda inay jiraan asbaab afwan aan ilaahdo inaad moodo waqtiyada dambe inuu soo yaraanayo si guud caalamka uu ku yaraanayo guurkii waqtiyada qaar farabadnaan jiray. si kale haddaynu dhigno waxa farabadnaanaya dadka nolosha ku gaadhaya meel dhexe 30-40 inta u dhaxaysa wax dhaaf siisan guur la'aan. maxaa sababaya ama maxaa sababa? daraasad badan oo la sameeyay waxay ku kala duwan yihiin halka laga sameeyay inkastoo aanan anigu wali arag dhulkan aynu degnay Somaliland iyo inta geeska Afrika cid daraasad ka sameysay maxaa kalifay ama sababay in guurku uu yaraado oo doobnimada raguna doobo ku farabato dumarkana habluhu ay ku farabataan aan guurka gaarin. carabtu waxay yiraahdaan cunuusa laakiin Soomaaliga kelmadana munaasab loo isticmaalaa uma baahni maadaama muhiimku yahay in faano maxaa kalifay guurku uu dib dhaco. asbaab baa jirta dunyada si guud aynu u wadaagno si gaarana laga yaabo inaynu gudwan. qodobka ugu muhiimsan waxa uu yahay waqti xaadirkan waxyaabaha sababay waxa kamid ah waa qalaaw al-maciisha maciishada oo qaali noqotay ama adkaatay oo dhinacyada laga eegayo way farbadan yihiin. maciishadii waxa kamid ah guriyihii la degay kiradii oo aad moodo inay caqabad ku tahay in qoysku sii jiro oo qofku markuu damco inuu guurkii galo oo caqabad ka hor taagan.
shaqo la'aantii baa dee dhinac kale iyadna kasoo gelayso qofkii uu guursan karaa alxamdulilah laakiin muxuu ku noolaanayaa waa ka dambaysa idna dee waa wax fiican laakiin waa inuu qofkii ku talagalo waxa ka mid ah waxyaabaha dibdhigaya dadkii aad moodo inaanay dareensanayn mas-uuliyadda inay qaadi karaan oo qofkii uu arkayo 20 jir 30 jir uu kusoo gaarayo guriga hooyadii aabihii deeta aanu uba diyaarsanayn inuu qaadi karo mas-uuliyadda deeta qofkii markaa uu ka eegayo xagga negatifeka ama salbiga in noloshani ay adag tahay ama ay culus tahay ama aanay munaasab ahayn waqtigan inuu qaadi karo waxyaabaha ka mid ah guurka dibdhiga waxaa ka mid ah qofku inaanu helin qofkii uu doonayay ama uu ku fashilmo inuu helo ciddii uu doonayay ama uu nolosha la wadaago mararka qaar waxaa dhacda xaalado khaas ah oo xanuun oo qofka in dee dareenkii ama baahidii guurka ku kalifisa ama ku socodsiinaysaba inay meesha ka baxdo mararka qaar waxaa dhacda qofkan in duruufo khaas ay ku hareeraysan yihiin oo ay ka mid tahay dee in waalidkii gacanta ku hayo oo markaa xaaladda uu ku jirana aanay u saamaxayn inuu u gudbo ama uu gaadho inuu guur sameeyo mar aan akhriyay daraasad laga sameeyey Sacuudiga 2019 oo ku saabsan guurka dib dhacaya iyo waxyaabaha sababa ayaa ay ilaa 5 qodob u sameeyeen qodobka ah in irtifaac takaaliif al-maciisha waxyaabihii lagu noolaanayay inuu kor u kacay inay sababeen guurka waxay ku qiyaaseen 3.98 qodobka labaad oo inagana aad mooday in badan qayb ka yahay hawsha guurka oo aad mooday in dhexdeena runtii ku culus tahay oo ay dhiirigelinayn qofka jeebkiisu uu hooseeyo ama dhexaadka uu ku dhiirada kelidii inuu galo hawsha guurka iyadana waxay ku qiyaaseen inay ka dhigan tahay in lagu qiyaasay 8.20 inay qayb ka mid tahay sababta saddexaad oo aad moodo waqtigan casriga in la socoto waxa ka mid ah qadiyadda waxbarashada ku saabsan oo guurkii ama si toos ah ama si dadban caqabad ugu ah inagana waynu leenahay dhibtaasi waxa laga yaabaa inay ku xisaabtamayo 12 sanadood dugsi hoose dhexe sare ah iyo 4 jaamacada in 16 ka sanadood isagoo 6 jira ama 10 jira waxbarashada bilaabay deeto 26 jir ama 25 jir ama 30 jir waxbarashada ay kaga dhamaatay 4 sanana laga yaabaa inuu sidii hadiiba uu shaqo helay shaqayso muddo inta laga markaa uu ka dib dhaco oo daraasadii iyo waxbarashadii ay sabab u noqoto wadanka Sacuudiga ilaa 13.77 ayaa lagu sheegaa in ay sabab u tahay arinta daraasada ama waxbarashada qofka waxbarashada dibadda loo dirana dee uu kasi xaq jira oo markuu wadanka yimaado la qabsigeedii hawlo fara badan bay wadataa aqoonta qofku soo bartay waxay ku xiran tahay hadba sidoo camal ugu helo camalkaasina uu fudaydiyo sidoo uu geli lahaa hawsha guurka oo runtii kharashkeedu uu culus yahay waqti xaadirka arrimo badan oo ay ka mid tahay inaanu qofka mas'uuliyadda aanu qaadi karin iyadna waxa lagu sheegay ilaa 7% asbaab kale oo lagu sheegay ilaa 6.69 iyagana way jiraan oo keenaya in guurkii uu adkaado dhibaatooyin baa jira adraar oo ka mid tahay bulshada dhexdeedii in qofka culays kaga yimaado ka mid tahay in mashaakil jinsiya waxyaabaha aynu naqaano kufsiga waxyaabaha sababa waxa ka mid ah guurka oo marka uu yaraado ama uu meesha ka baxo marka qaar keensanaysa hadii qofkii xaaraanta islaantay hadii qof ay ku wada heshiiyeen xaaraan uu sameeyo uu waayo laga yaabaa inuu damaaci ka galaba qof kale oo saa ku qasbo wada kufsina saa ku dhaco marka qaarna laga yaabaa inuu qofkii sidaado ceebtii aad samaysay astur inuu qofkii bada naftiisi uu dhaafiyo macaayirtii nolosha oo yadna hoos u dhacdo waa dhibaatooyin fara badan bay markaa keensataa haddaba maxaa xal u ah ta'akhur zawaajka oo haddii la sameeyo meesha ka saari kara ama yareyn kara waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah sidaynu sheegnay inagoo waliba beledkeena magaalada Hargeysa hadda aynu joogno aynu barnaamijka ku qabanano caqabada ugu weyn ee maanta dareemayso inka guursidina uu ka cabanayo ka ku soo socdaana uu ka cabanayo la wada dareensan yahay culeyskeedu waa culeyska kirada ama guriga la gelayo aad bay u kooban yihiin dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fudeediyay inay hanti yeeshaan ama ehelkooda ay siiyaan
si ay ku soo gashaba laakiin dee waxay ku noqonaysaa naadir oo naadir la xukma leh naadirkuna dhammaa wax dee laga qiyaas qaadan karo ama la sheeg si haddaba aynu arrintaa ta'akhur zawaajka meesha uga saarno wax laga maarmaan ah ka dawlad ahaan iyo ka sharikaad ahaanba in la sameeyo mashaariic waaweyn oo ah binaa'ul iskaan ama asukani in la sameeyo goobo guryo jaban oo kirada ay jaban tahay in loo fudaydiyo dadka guurka ka cusub ama guurka doonaya inay galaan ee dhalinyarta waxyaabaha aad muhiimka waxa ka mid ah sicirka ama kharashka guurku uu farbadan yahay inta tusaale kale ninkii dhalinyarta markuu doonayo inuu guursado bulshadeena waxa laga yaabaa intay haasaawayaan in kharash ka baxo kharashka gabadhu ma bixisay wiilka bixiya kaba imo qaarkood baa laga yaabaa in jaamacadda ka bixinayeen 4 sanadood qaar baa laga yaabaa in makeup ka bixinayeen ama shoppingka marka meherku dhaco meherkii baa laga yaabaa in hotel loo shaqeeyo habeenkii marka maanta meherku dhaco ayaa laga yaabaa in xaflada dana la qabto oo kharash marka muddo ka soo wareegta ayaa labadii qoys ay xoranayaan isbarasho oo wax dhawaan lagu soo kordhay iyo dawa kharash waxa la doonayaa in aqalgalkii la sameeyo ninkii waxa laga doonayaa inuu soo iibiyo alaab dee badankeeda laga yaabaa in intifaacigu iska yaraan marka guriga la joogo hurdo cunto fadhi alaab aad iyo aad u fara badan oo qofka ragga runtii dee ninka laga rabo mas'uuliyadaasi ay ku culus tahay intaas oo dhan marka laga yimaado guri baa la geliyaa qadiyadii hore soo sheegay waa soo taagan waa kiradii haddana dhinacan kale haddana maciishadii si haddaba meesha looga yareeyo ama looga saaro waxayna laga maarmaan in la helo qardi xasan deyn aan dulsaar lahayn noocay doontaba ama aan faa'iido laga sii dabadayay oo loogu fudaydinayo dadka dhalinyarta ah in alaabta guriga la dhigayo si yar oo haftaan looga qaado gurigiina loogu fudaydiyo waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah in tawciye la sameeyo wacyigelin dadka ehelka hooyadii aabaha labada dhinacba in lagu wacyigeliyo in guurka la fudaydiyo oo dhalinyarta lagu dhiirigeliyo rag iyo dumarba in guurka la fudaydiyo qodobka afraad ama shanaad ee isleeyadna muhiim buu yahay waxa ka mid ah in la sameeyo muassasaad dhiirigeliya zawaajka iyo guurka oo qodobka ka ku xigana laga yaabaa inay qayb ka noqon karaan fudaydinteeda oo ah in la sameeyo acraas jamaaciye guur wadareedyo laga yaabaa inay kharashaadka hoos u dhigaan bulshada dhexdeedana dee u noqota dhiirigelin qadiyadda muhiimkeeda waxa weeyaan in dawladda laftirkeedu ay siyaasad ka yeelato dadka maanta ee ku gaaraya siniga ama da'da guur la'aanta 30 iyo 40 oo wax dawladnimadeena nolosheena ka go'an qof kasta oo guurka ka dib dhaca waa qof dib lagu soo kordhinaya oo ugu yaraan tarantii uu ku soo kordhin lahaa inagala dib dhacayo marka ka dawlad ahaan inaynu siyaasad arrinta noocaas ka yeelano waa laga maarmaan tusaale yar oo kooban baan siinayaa qowmiyadda ormada la yiraahdo waddankeena Soomaaliland aad bay u soo farbadanaysa taranta qowmiyadaasi aad bay u farbadan tahay bari dhexdiya oo aan bal wax iskeen weydiiyay wax soo ogaaday inaad tumar alla markay saa madaxa ula kacdo in loo guuriyo dadka waxa arkaysaa hooyadii inateedii iyo inatay sii dhashay oo saddexduba laga yaabo in sanad kasta ama labadii sanadoodba hal mar dhalay taranta noocaas ah ee laga yaabo 10 ama 30 ama 20 sanadood soo socota saameynta ay nagu yeelanayaan marka ka bulsho ahaan iyo ka dawlad ahaanba waxa laga maarmaan ah inaynu la dagaalano ta'akhur zawaajka guurka dib dhacay way ka mid tahay dawladda qaadka la yiraahdaa in bulshada aynu kala dagaalano dadku markay qaylaan saameyn xun oo caafimaad ayuu inuu keenayaa waxyaabaha inta muhiimka waxa ka mid ah in daraasad lagu sameeyo qoysaskan burburaya inaan laga fikirin kuwa cusub la soo kordhiye qoysaskan maalin kasta burburaya in yada laftirkeeda oo laga yaabo inay dhiirigelin qaldan siinayaan dadkan doonayna guursada marka arkeen hebelkii ama heblaadii si qani ama saaxiibka ayeen ee laga yaabo inay 4-5 sanadood soo sheekaysanayeen maantana cadow isku ah marka barakallahu fiikum waan dheeriyay runtii waa qadiyad muhiim ah inaynu badan ka hadalno waxyaabaha sababaya ta'akhur zawaajka iyo waxyaabaha xalka u ah inaanu ahayn wax cid gaar ah ku kooban ee u baahan qadiyad guud oo inoo wada saameynaysa go'aankeyga iyo xalkeygana si guud aynu u wada baadhno u wada keenno oo ilaahuna Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa billahi tawfiiq
يا من أرسيت مراسينا وبعثت بنورك ياسينا، أيلوذ بغيرك عاصينا لك يا الله. قد حل وباء أرقنا ورفعنا الأمر لخالقنا، فهنا وهناك يلاحقنا فدعونا الله. يتلاشى الهم وينحصر ومخالب تقوى وتنكسر، والفرج سيأتي